وبركاته waxaa ila taagan qonsulka safaaradda Soomaalida Belgiumka Mudane Cali waxaan halkaan fariin ugu gudbinayaa ururka samafalka jaaliyadaha Netherlands iyo gudoomiyaha Efsan marka waxaan idinla socodsiinaynaa maanta jaaliyadda bareeda waxay halkaan keentay xoog iyo dad u gurmada safaaradda markii ayna soo gaartay cabasho ku aadan in safaaradda ay inay la wareegi rabto dawladda Belgiumka khaasatan konsularka Brussels markii maaragtay nadaafad darro iyo dhirtii meesha ku baaba'day iyo daryeel la'aan ay ku dhacday iyo ammaanka naftiisa loo cabsi qaba oo jaaliye oo ay sameeyeen dad jangi ah inay degaan guriga marka waxa warbixin gaaban naga siinaya دكتور علي وشو دواقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة أول ما أنتم معلومين شرف وين ما أنتم عند ريمنا إن صوماليا يسوق المتي جراهان جريدة دقن بريدة وما أنت ساكن قصد المضي إن أي واحد وين كقبطان معوها يجيني ودقان كسفير كانها إن أي رين مركي أركان حالة ديسة أي مغلان إن دولده هو سعينا صفرة كشتي ولو ورك السوقين إن شاء الله تعالى إن دولة الصوماليات أي عارين ذاسي أي واحد نقلا قبضه إن أي رهين يعني ولي أنا عن كمان كرنو في توسعة أن عارين ذاسي واحد قبلنا أنت تقول متكون عنوان معنا أيو وعلى رجينا دي إلى إيران إن أي نقطة معلن كتير مدن أدوار بقى الصوماليات أو أود وله هذا أود وله والله باين هيل يهو ويحد أودان هنا الجوري جالس عبد البادسان إن ما أنت هلست فجره هنا عديته في المدان كله بسها بدله وأعطيكم بفكرة مدينة إلى إن شاء الله أنا أولي رجعوا كنا صوماليا أي دولة نحاول أن رقم الله Soomaaliya Soomaaliya qonsulku waa mahadsan tahay insha Allah taala fariintaad waxaan aad iyo aad aan u diraynaa jaaliyadaha Netherlands annaka waxaan xubin ka nahay guddiga samafalka ee jaaliyadaha Netherlands oo ay ku midaysiin ilaa 60 jaaliyadood oo Soomaali ah oo ay degan yihiin Netherlands waxayna kulligood ay maaragtay ka tirsan yihiin dalladda Efsan maxaad u gudbi lahayd dalladda Efsan oo gudoomiyo ah ururkaas horta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maqlaayo mar walba Netherlands inay ka duwan tahay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee degan Yurubta kale midowga Yurub oo yacni magaciisa ay leedahay dallad ay iskugu yimaadaan ururada oo dhan oo ku meelaysan Soomaalinimo rabana oday iyo asxaabtiisa oo dhan inay maanta ay muujiyaan inay ayagoo qalabkooda sita ayagoo soo ijaartay baabuurtooda soo daba dhigtay inay maanta noo yimideen oo ay hawshii hore ka galeen ayagoon haba yaraatee wax hagar aysan ka muuqan oo kulligood diyaar u ah inay dhammaystiraan hawsha maanta ku jirta ilaahay intiisa waxaan rajaynaya